Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada muuqaal cusub oo ku saabsan hadduu Allah awoodo maxaa kaa dhigaya inaad u malayso inuusan xalin karin dhibtaada. Daawasho wacan. Hadduu xakamayn karo qoraxda isaga oo aan xarig ku xirin, hadduu si kaamil ah kaaga abuuray ciidda, markaa waa hubaal wax kasta oo aad doonaysid inuu isagu sameeyo wuu awoodaa. Hadduu sharaf u keeni karo dawladaha dulligu hareeyey, hadduu dheerayn karo qofka cimrigii, markaa xalinta murugooyinkaaga wuu awoodaa. Hadduu sababi karo qoraxda iyo dayaxa inay istaagaan, hadduu Nabi Muuse uu waddo uga sameeyey badda si uu u maro, markaa maxaa kaa dhigaya inaad u malayso inuusan xalin karin dhibtaada. Hadduu sababi karo nin indhala inuu wax arko, hadduu xukumi karo dhaqdhaqaaqa quraanjada iyo shinni walba, markaa maxaa kaa dhigaya inaad u malayso inuusan fahmi karin baaxadda arrintaada. Hadduu ka badbaadiyey Nebi Yuusuf ceelka ay walaalihiis ku tuureen, hadduu abuuri karo dad jooggoodu gaarayo 30 fiit, markaa maxaa kaa dhigaya inaad u malayso inuusan ku gacan qaban doonin marka aad dhacdo. Hadduu Allah quudin karo shimbiraha cirka duula, hadduu hooy siin karo nin hoy la'aan ah, markaa wuu awoodaa inuu ku arsaaqo. Hadduu sababay burburka Xajaaj oo ahaa boqor kaliya duca uu ducaystay Saciid binu Zubayr oo ahaa wiil yar, markaa maxaad u malaynaysaa inuusan buuraha dhaqaajin doonin ilmadaada darteed. Hadduu Allah sababay inuu waaro nin caloosha nibiriga badda ku jiray, markaa maxaad uga walaacsan tahay Allah amarkiisa.